بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله المسلمين تامل كستود كنوشين إلهي سبحانه وتعالى عافي ماد هيد كسيو والدعاء دي ينوب الله السنين دي إلهي سبحانه وتعالى وكرر لنقضه وندي سو قد بين دونه وحن فرفرتان وقدقيا دعاء حديث مكسو أرورين الله المستعان آيات القرآن لقى دح فهمي مفسرين تقارنا كلي آيات حتى فسر كذا وحي الشيغان إنه نبي ويدي سني عليه الصلاة والسلام نبي قاس إنه كشكين دونه عنتا إيو ما الله المال يوم قرنا ساي وكور رمي إيو باهذا وقوي مركا لكن آياتها الدبية الله يدو لقى فهمي ayaa dadka qaar waxay magaranaysaa ka soo dhaxigteen in ducadan loo adeegsan karo Allahu musta'an ninkii doonaya gabadh saalixada in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyo ama gabadhii doonaysa wiil saalixa in Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyo waxaynu xooga u saarnay waxaynu u saarnay nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wassalaam ad-dunya mataa' wa khayru mataa'iha imra'atun saalixa adduunyadu waxa weeye waa macmacaan iyo magaranaysaa wax yar oo de magaranaysaa Allahu musta'an maalmo yar lagu raaxaysanayo laakiin raaxadeeda ugu wanaagsan waxa weeye buu leeyahay nabiga alayhi salaatu wassalaam gabadh saalixada ninku hadii uu gabadh saalixada helo waxa hubaal reerkaas inay badbaadiyaan gabadhuna sidaas leeg haday hesho wiil saalixa ama nin saalixa hadii aad hesho wanaagsan waxa hubaal reerkaasi inay badbaadiyaan in uun ay badbaadiyaan sidaa darteed ayaan aniguna u doonayaa saalixad idinkuna aad u doonaysaan saalixad iyaguna ay u doonayaan Allahu musta'an rag saalixiina inta kadib waxaan u gulagadayaa barnaamijkayga baan u gudagalayaa nabi ilaahi Muusa alayhi salaatu wassalaam markii uu ninka dilay la raadinayay magaranaysaa loo soo digay uu ku yiri ninkii kale Allahu musta'an waa lagu raadinayaa nabi ilaahi Muusa ee ka baxsameesha baxsadkii uu soo baxsaday Madyan ayuu soo galay Madyan markii uu soo galay wuxuu yimid laba gabdhood oo nabi dhalay nabigaas oo gaboobay oo nin weyn noqday dadana wuxuu ku yiri maxay idin fadhiisiyay meesha way u cawdeen baahidoodii bay u sheegeen inayna awoodna lahayn aabahoodna uu yahay nin aad u weyn oo da ah marka iyaguna xoolaha kaligood ayna waraabin karin inta kadib ayaabuu xoolihii u waraabiyay fasaqa lahumaa thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya من خير فقير دعاء سيكون دعاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام دعاء سيد لقد دمنيه فقري بو كعودي نبي الله موسى قفكن هدي فقري هي دمال والبا فقري عسي واقلا سفركي عنتدي الله المستعان وحيس الشدي نين سو بخسدايو waxba aan haysan oo dalkiisii maganaysa wadankiisii ka soo baxsaday waa sii soconaya waxaan rabaa inuu isugu keen xiranto qisadu inta markii uu ku ducaystay nabi weeye isagu inaga inala mid maaha markiiba ducadiisa Allah subhanahu wa ta'ala uu ka aqbalay fajaa'atu ihdahuma tamshi ala istihya'in labadii gabdhood mid kamid ah ayaa u timid iyadoo walibana xishoonaysa oo si adab leh oo adab ku dhahan tahay u socota qalat inna abi yad'uuka liyajziyaka ajra ma saqayta lana abahay baa ku yeeray tiri si uu kaaga abaal mariyo Allahu musta'an xoolihii aad noo waraabisay qofka wanaagsan waa saasadii wax loo qabto waa inuu abaal gud وبحيا فلما جاءه وقص عليه القصص مركي أوي من نبي الله شعيب وأرنتي وغشيكي وحول قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وروح بها بغنب كويري قوم كي ظالمين تا الله سبحانه وتعالى وكاسو كحيي وميل لما تشوكتي إمك وحبها كبغن مركا هذا إمك ضلبكي أيا بلابنية وأنا هلك لدوني قبلها مسلمين تا إن الرقة أي كأيغان رجع مسلمين ترى دمر أي كأيجان وحي تري قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين أبا بيت النكن وأن أود له حق له وحوله كلجي ورابيي اتكلنا إنه كعاون أمين نوي هو مركي أن سوى السعني قصد وين هذا وحكوا حق الضم يجمر صادني هرجلنا ومقرنا سايندها يقول إنه كودعين يتلمام بالمركز هذا وهلكا يتلمام ولما ذكرنا وحب الشيء جنبه لنا عنه لا حنا يوحير يقطرون ويري اللهم sidii doontaba haato xagga dambe ka soo martay way tilmaamtay sidii bay ku yimaadeen gurigii iyo reerka meeshii yaalay maadaama uu sidaa yahay waa nin amiina
oo wixii loo dhiibtana aamin ah dumarka muslimiintana waxaa loo baahan yahay arrintaa inay ka eegaan ninkani nin hawlkara ma yahay ninkani nin codkara ma yahay ninkani nin wax qabsanaya ma yahay ninkani nin saalixa ma yahay ninkani nin wanaagsan ma yahay 150 su'aalood waa inay isweydiiyaan laakiin arrintu hadday noqoto uun magaranaysaa igu meheri iyo magaranaysaa ayay allah almustacaan nin baan helay iyo shaar iyo surwaal maxidhan yahay haddii ay noqoto uun waa mashaakil weeye marka dambena arrintaasi waxay dhashaa arrimaha dhammaantiin aan wada ognahay hadda ka hor gabadh baa nin iila timid oo waan is naqaanay gabadho markaa waxaan ka dareemay xoogaa degdeg waxaan ku yidhi ma ka fiirsatay ninkan aqoon maad u leedahay maya waxay tiri sheekhow jaanis baan maanta haystaaye jaaniska ama rabo inuu iga magaranaysaa beerdaroobe iga lume ninkan igu meheri bay tiri welibana reerkiina adigu afkaaga igula hadal reerkii baan la hadlayoo ninkii gabadhii magaranaysaa alxamdulilah loo meheriyo muddo yaroo koobanba intayna wada joogin bug maalintii dambe ii yeedhe saan ku yidhi heblaayo waa adigi lahaa jaaniska inaan beerdareeyo ma rabe waan ku lahaa ninkan ma ka fiirsatay bal ka waran baan ku yidhi arrintii ma in laga furo mooyaane talaba tay maaha bay tiri marka waxaan ku yidhi annagu waan isu meherinaaune ma kala furno baryahan furniinkiibaa magaranaysa allah almustacaan aad u batay sidaa darteed bay gabadhaasi waxay leedahay aaboy ninkan inoo shaqaalaysii waa nin amiina kow labana waa nin magaranaysaayey xoog leh oo dee reer nin karmeed ah oo magaranaysaayey howlihiisa iyo arrimihiisa ee ka soo baxaya weeyaan dayib nabiyullaahi shucayb nebi buu ahaa nin caqli badan buu ahaa nin aad iyo aad u xigmad badan buu ahaa markiiba waxa weeye dalabkii buu isna gudbiyey wuxuu ku yidhi qaala innii uriidu an unkuxika ibnatay maxaa yeeday allah almustacaan ixda ibnatay haatayn waxaan doonayaa inaan kugu meheriyo labadeedan gabdhood mid ka mida buu ku yidhi yaa labadeedan gabdhood mid ka mida inaan kugu meheriyaan rabaaye ka waran buu ku yidhi oo arrintii markaa waxa weeye dalabkii baa yimid marka maxalla shaahidka aynu u soconnana halkaas ayuu ahaa marka qisada iyo aayadda siday ku timid baan rabaa inaan idiin sheego aayaddani iyo qisadani way dheer tahay hadda ka hor annagoo niman dhallinyaro ah oo dhowr ah ayaabaa waxaa dhacday allah almustacaan oday annagoo arday baanu ahayn khuruujna waanu baxsanayn waddan markaa waddamadan dibadda baanu ku baxsanayn deetana oday weyn da-ah ayaa masaajidka noogu yimid oo magaranaysaa culimmada meesha ka mid ahoo aad iyo aad raggu saa u daba socdaanoo magaranaysaa laga barakaysanayo aad noo duceedaasaa lahay yidhi waryaadhahen soomaali baa tin haa markaa afkooda buu ku hadlay waana looga turjumay masuu dhallinyaraa tin haa oo arday baa tin haa ma idiin faa'iideeya masaan ku yidhi nacam seeda noogu faa'iideynin ragguna inta badan dee markay ardayda iska yihiinee magaranaysaa dee dababka la iska yahay inta badan waxay ka wada hadlaan waa dumar wey iyo guur baa arrimahaasa laga hadlaa dee dumarkuna sidaasoo kale markay habluu gashaantama yihiin waxay ka hadlaanuun dee siday gabadhaasi reer iyo aqal iyo nin wanaagsan ay ku yeelan lahayd wuxuu yidhi duucaan idin barayaa 40 cisho haddaad akhridaan yani waad ka badin kartaa waanaad ka yarayn kartaa sida runta ah maadaama unu xadiis una ahayn saa ina amraya laakiin waa ijtihaad weeye oo magaranaysaa ay kala soo dhex baxeen ee qur-aanka ay ka fahmeen waye sidaan horeba aan u sheegay waanaad ka badin kartaa waanaad ka yarayn kartaa bacda salaata subax baad akhriyaysaan waa aayad qur'aana weeye goormaad akhriyaysaan bacda salaata subax ayaad akhriyaysaan 40 cisho ayaad akhriyaysaan haddii gabdho saalixaada aad heli weydaan aniga ay soo raadsada wiil ballanqaadkaas ayuu bixiyey anna ballanqaadkii mid la mid a ayaan bixinayaa maadaama oon ahay magaranaysaa mid arrintan ajjaabiyey weydiin bay yidhahdaan dhakhtarka ee waxaad weydiisaa mujarabka weydii ka wax soo tajribiyey marka maadaama uun tajribiyey alla subxaana wa tacaalana igu guuleeyey raggii qaar badan oo ka mida oo ilaa iminka aanu xidhiirnana ilaahay subxana wa tacala gabdha saalixaada uu siiyey ayaabaan markaa saas darteed baan idinkugu soo gudbiyey aayadda aan u galno فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آياداس سورة القصص بكجرتا آيادا أفري لباتنات أما صدحي لباتنات تقريبا ويان مركا أفرتن عشيات كوع العليسة هدي أد قبرت هنا إلهي سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذننا الكريم ويل أيكو سهل دونا هدي أد في عن هدي أد ويل تهينا الله سبحانه وتعالى reer fiican ayuu kuu sahli doonaa waxa loo yidhaha lagu celceliyana inagu ambiyana ma nihin saalixiinna ma nihiin mar kasta oon ku celcelino ducadeennii unbaan hubinaynaa in la inaga aqbalay iyo in kale anuu laftarkayga imika waxa iga haysaaba inaan mar labaad ku celiyo aan xabad labaad aan raadiyo ayaan rabaa insha allahu bidnillahi alkariim cajiidii baa xaraqday oo igu garanaysaa iyo kaasaa waxa weeye xabad labaad insha allah haddii ilaahay subxana wa tacala uu ka raali noqdo ay idinkuna saas sameeya insha allahu waana idin salaamaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh